labaad waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum sheekh Shibli xafidahullah sheekha waan idin salaamay waxaan idin weydiinayaa sheekh Maxamuud Shibli hadii waalidkayga oo xanuunsan la ii sheego aan markaasi haysanin muhram ma safri karaa sheekh su'aashaas ay weydiinayaa ilaa alxamdulillah laba xaaladood waad safri kartaa xaaladda koobaad yaadan muhram gaar ah haysanin laakiin hadaad rufqa aamina haysato dad dumar oo raggoodii la socdaan ama maxaarimtoodii la socdaan adigana xaaladaada ku wehelinayo ka warqabaya oo loo yaqaan rufqa aamina hadaad haysato waa safri kartaa xaaladda labaad ee safri karta waxa weeye waalidka xanuunsan haddii baahida uu ku qabo baahi daruura ay tahay oo uusan ka maarmi karin ama cid kale oo daryeesho haysa aan lahaynin min baabka daruuraat tubiixu lmaxduuraat iyo ارتكاب وخفض الضررين بيكون بنانانيسا لكن إذا رفقا من هيسنين سجن الضرورة وسنكو باهنين كلي ما سفري كرتيد وبالله التوفيق جزاك الله خير الجزاء